Assalaamu calaykum saaxiibayaal. In badan oo ka mid ah carruurta caalamka ayaa ah kuwa ka duwan carruurta kale, sida inay leeyihiin hibooyin u gaar ah ama ay la dhashaan cudurro dhif iyo naadir ah. Cudurradaasi oo qaarna faa'iido u leh, qaarna dhibaato ku haya. Haddaba maanta waxaan idila wadaagi doonaa carruur aadan rumaysanayn inay adduunka ina kula nool yihiin. Isaac Johnson, wiilkan waxa uu leeyahay af aad u weyn, kaas oo balliciisu gaarayo 9.34 sentimitir. Waana mid afkiisa gelin kara waxyaabo aad u waaweyn iyadoo aan wax dhibaato ah ka soo gaarin. Badanaa waa mid madadaaliya saaxiibadiis isagoo afkiisa gelinaya waxyaabo kala duwan sida caagadaha, liin macaanta iyo waxyaabo kale. Isaac ayaa buugga Guinness World Record-ka ku galay qofka ugu afka weyn adduunka, waxaana la filayaa in uu isagu jabiyo rikoodhkiisa marka uu weynaado. Maxamed Al-Sheikh, marka aad aragto wiilkan waa mid aad u malaynayso inuusan wax lafa ah jirkiisu lahayn, waana mid jirkiisa u wareejin kara dhinac walba. Maxamed ayaa lagu naanaysaa wiilkii caara-caarada ahaa. Hooyada dhashay Maxamed ayaa sheegtay inay arrintan wiilkeeda ku aragtay isagoo aad u yar, kadibna ay ka caawisay sidii uu hibadiisa u soo bandhigi lahaa. Waxaana uu markii ugu horreysay ka qayb galay tartanka hibooyinka ee Arab Got Talent sanadkii 2015. Sidoo kale Maxamed ayaa buugga Guinness World Record-ka ku galay khabiirka wareejinta jirka dhinac walba. Intaasi kadibna waxa uu noqday mid caan ka ah adduunka isagoona ka qayb galay tartamo aad u badan. Bayasiid Xussein, wiilkii odayga ahaa. Wiilkan waxa ku dhacay cudur dhif iyo naadir ah, kaasi oo sababa in jirka qofku uu si dhaqso ah u gaboobo ama da' u noqdo. Waana cudur 18 milyan ee qofba hal qof laga heli karo. Bayasiid ayaa qoyskiisa kula nool koonfurta waddanka Bangladesh, gaar ahaan magaalada Maguru. Waalidiinta Bayasiid ayaa sheegay inuusan wiilkoodu ahayn mid ciyaalka kala dhex gala, sababtuna ay tahay ciyaalka oo ka cabsanaya una maleeya inuu qof weyn yahay. Tessa Evans waxa ay dhalatay iyadoo aan wax san ah lahayn, waxaana sababay cudur lagu magacaabo arrhythmia. Waana mid carruurta uu ku dhaco ay dhashaan iyaga oo qaar ka mid ah xubnahooda aanay dhammaystirnayn. Iyadoo ay sidaas tahay haddana Tessa waa mid awoodda qufaca iyo hindhisada, laakiin dareenka urta ayaa ah mid gebi ahaanba ka maqan. Qalliin lagu sameeyay Tessa ayaa lagu guulaystay in loogu sameeyo tuubo ay ka neefsato xagga hore ee dhuunteeda, waxaana la rajaynayaa markii ay weynaato inuu u soo baxo sankeedii, maadaama marba marka ka dambaysa uu soo korayo. Marsha and Millie, mataanihii kala midabka ahaa. Badanaa mataanuhu waa kuwo la isku khaldo ama aad ku wareerayso kala saaristooda, laakiin gabdhahan ayaa ah kuwa gebi ahaanba aan isku ekayn, sababtuna waa waalidiintooda oo caddaan iyo madow kala ah. Millie ayaa raacday aabbaheed iyada oo yeelatay timo madow iyo indho madow, halka Marsha ay raacday hooyadeed iyada oo yeelatay timo cad iyo indho buluug ah. Mataanahan ayaa sheegay inaysan dadku rumaysan inay mataano yihiin. Maxamed Kaliim waa wiil u dhashay waddanka Hindiya, waxaana yaraantiisii haleelay cudur dhif ah kaas oo sababay in gacmihiisu sameeyaan korriimo xad dhaaf ah. Waxa uuna ku noolaa nolol adag, sababta oo ah dadka degganaa tuulada uu ku noolaa ayaa mar kasta takoori jiray, iyaga oo ugu yeeri jiray wiilkii shaydaanka. Nasiib wanaag, Maxamed waxa qalliin u sameeyey dhakhtar deegaankiisa ah, taas oo ugu dambeyn joojisay korriinkii gacmihiisa. Jackson Buell waxa uu dhashay isagoo ay maqan tahay qayb badan oo madaxiisa ka mid ah, sanadku markii uu ahaa 2014. Waxaana intii uu uurka ku jiray dhakhaatiirtu hooyadii u sheegeen in uusan muddo badan sii noolaan karin haddii uu dhasho, sidaa darteedna ay iska soo xaaqdo. Laakiin hooyadii waa ay ka diiday arrinka, waxa uuna noqday go'aan aad u saxan, sababtoo ah wiilkan ayaa ah mid ilaa hadda nool. Sidoo kale wiilkan ayaa baraha bulshada caanka ah isaga oo leh taageerayaal badan. Lara iyo Mara, gabdhahan waxa ay la dhasheen cudurka albino, balse ma noqon mid dhibaato u keena. Taa beddelkeeda waxa uu ka dhigay kuwo aad u qurux badan, isla markaana ay u tartamaan shirkadaha dharka xayeysiiya kuwooda ugu caansan. Waxay mataanahani caan noqdeen kadib markii ay faafeen sawirro cajiib ah oo laga qaaday. Waqti xaadirkanna waa kuwo ka mid ah gabdhaha modeliska ee ugu caansan. Intaas ayaan idila wadaagnay saaxiibayaal maanta. Haddii aadan channelka weli kusoo biirin, fadlan subscribe saar. Haddii uu fiidiyowga ku qanciyay, like saar. Waad mahadsan tahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.